oo gaabashada awoodihii Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilligii uu kursiga sii joogi lahaa oo gabaabsiya maadaama uu madaxweynaadkiisu ku ekaa bishii shanaad ee dhaaftay ayaa weeraro ka dhan ah Soomaaliland oo la qorsheynayay hoos u dhac weyn ku yimi Turkiga oo ah cudurda ugu weyn ee uu ku tiirsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaya caqabadihii ugu waaweynaa kuwaasi oo kaga ibanaya deegaamada Soomaalida iyadoo ujeedadiisa ugu weyn ee uu leeyahay ay tahay sidii uu u xaalufin lahaa kheyraadka Soomaalida ee dihin hadaba maxaa sababay in hoos u dhac uu ku yimaado kalsoonidii Turkiga iyo awoodihii Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo bixiyay waraysi ayaa sheegay in aanay Soomaaliland wax duulaan ah ku qaadaynin balse ay doonayaan wada hadal iyo isfaham inay ku dhameeyaan arrimaha ay ku kala aragti duwan yihiin labada dhinac talaabada tani ayaa waxa ka horeeyay isbuuldhig tiro badan iyo hadallo macaan oo ay la soo baxeen maalmihii xorriyadda Soomaalida markii la gaaray madaxda ugu sareysa xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay inkastoo aanay ka tanaasulin qorshayaasheedii weerar iyo dabinadii ay Soomaaliland u dhigaysay balse luuqad bedelkan diblomaasiyadeed ayaa xeeldeerayaasha qaarkood ay ku micnayeen inay tahay dagidii istileemin uu dagaal ka dambeeyo balse waxa dhacay caqabado miisaan leh kuwaasi oo hoos u dhigay kalsoonidii Turkiga iyo awoodihii Xasan Sheekh Maxamuud maadaama madaxweynaadkiisii uu ku ekaa bishii May ee galbatay oo haatan uu 2 bilood muddo ku siman si sharci darro ah ku fadhiyo kursiga yahayna madaxweyne waqtigiisu dhamaaday sida ay aaminsan yihiin mucaaradka Soomaaliya ayaa tani waxa ay dhaawac weyn u geysatay kalsoonidii beesha caalamka iyo habsami u socodka deeqihii caalamiga ahaa kuwaasi oo ku soo durdurayay magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi sidoo kale marka laga reebo meelo fara ku tirisa guud ahaan Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha uu Turkigu wado Puntland iyo Jubaland ayaana kamid ah deegaanada warqadaha ka soo saaray in aan soo gali karin sohdimahooda taasina Turkigu waxa uu ku lumiyay intii ku midaysnayd Soomaaliyada calanka buluugga ah iyadoo ujeedada ugu weyn ay ahayd sidii uu deegaamada Soomaaliland u soo gaari lahaa kuwaasi oo shidaalka ugu badani uu eegaago marinadooda badeedna ay yihiin kuwa caalami ah oo haatan caalamka oo dhameeya u soo wada tartamayo dalabyo tiro badan iyo ergooyin kala duwan ayaa Soomaaliland si joogto ah u soo gaarayay bilihii la soo dhaafay kuwaasi oo Soomaaliya ka socda una madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ku dalbanayo in wada hadal laga furo inkastoo madaxweynaha Soomaaliland ku gacan sayray waxaana ergooyinkaasi ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo Xasan Sheekh Maxamuud codsiga ugu weyn ee uu hordhigay uu ahaa sidii Soomaaliland ay wada hadal ula furi lahayd Soomaaliya balse dhinaca Hargeysa ayaa albaabkaasi xidhay iyada oo ergooyinkaasi ay wax natiijo ka gaadhin tani waxay noqotay guuldarro kale oo ay Muqdisho la kulantay taasi oo dhacdooyinka dabadiisa ku qarsoon kamid ah awoodo tiro badan ayuu ku waayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaadkiisa oo dhamaaday kuwaasi oo sababay in aanay firfircoonidii iyo tallaabooyinkii la qaadayay ee lagu weerarayay maamul goboleedyada sii soconin inkasta oo mucaaradka Muqdisho ay yihiin kuwa u shilib dhigi kari waayay ilaa iyo haatan oo tala dheeraysigii iyo tallaabooyinkiisii isku caanashubka ahaa ay u sii socdaan balse maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa si weyn uga soo horjeeda kuwaasi oo la ismari laayahay ilaa iyo haatan waana meelaha Turkigu uu ku waayay kalsoonida ugu badan weeraradii Soomaaliland ka dhanka ahaana waa sababaha ku keenay hoos u dhac weyn inkasta oo weli ay socdaan sanada militariga lagu soo daabulayo Laascaanood iyo tan uu Turkigu ku soo daabulayo magaalada Muqdisho balse caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla Xasan Sheekh Maxamuud oo aan qorshihiisa u fulin karayn ayaa ah Turkiga oo deegaamada Soomaalida aan kalsooni ka haysan iyo isagoo madaxweynaadkiisii dhamaaday waana sababta ay u soo noqonayso ergada ka socota Muqdisho ee Hargeysa ka doonaysa wada hadal iyo inay albaabka ka furto si ay u dhacaan khiyaamooyin oo dhaawaca awoodaha iyo aqoonsiga ay haatan Soomaaliland ku naaloonayso balse madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa qorshahaasi ganafka ku dhuftay waxaana uu ku soo dhamaaday fashil iyo faa'iido la'aan